sheeko bal hadda aan ka sheekayno sheekadii geesiyaasha dharkeenna aan diyaarsanno dharka noocaan ah waxaa xiran jiray ilmo idinkoo kale ah inkastoo ay carruur ahaayeen waxay hayeen mas'uuliyad weyn oo ah in ay boqortooyadooda iyo xaafaddooda ka ilaaliyaan khatarta uga imaan karta gudaha iyo dibadda waxay ahaayeen geesiyiin weynaaday waxay haysan jireen wakhtiga ugu wanaagsan uguna cajiibsan markay dharkooda xidhaan diyaar ma u tihiin inaad noqotaan mataanaha baddhowr waxa keliya ee laga rabo waa inay waxa saxda ah sameeyaan dhahaanna waxaan rabnaa inuu qof walba ammaan qabo waxaan nahay mataanaha baddhowr mar kastana waxaan diyaar u nahay wakhti wanaagsan ساتهين مقعي واحدة ساتهين مقعي وحرسي waxaan rabnaa inuu qof walba ammaan qabo إيرا لهذا فضلاً 2 متر كلا فوق هذا waryaahe waxaan idinka codsanaynaa inaad kala fogaataan geelow idinkana fadlan kala fogaanshaha ku dhaqma هاي إذنكا كلا فوق هذا قفنا لما دقيستو hidooy waxay u eg tahay inaad xanaaqsan tahay waxa iga siyaa ma garanaay waan iska xanaaqsanahay hidooy hooyo ma fiican tahay aad buu u adag yahay guri joogan waxaan u malaynayaa inay taas ka xanaajiso hido ani xitaa sidaas baan dareemaa marmarka qaarkood ma sidaas baa marmar waxaan dareemaa xanaaq murugo argagax marmarka qaarkoodna waxaan dareemaa waxaas oo dhan hal mar ma garanaysaa si aan caadi ahayn waxaan iska rabaa inaan la dagaalo xirsi ma garanayo sababta waan fahansanahay waxaad ka wadid ma fahansan tahay ani xitaa waan dareemaa si aan caadi ahayn mana sharixi kari marmarka qaarkood markii aan wax badan aan guriga isla joogno waan isku xanaaqi karnaa waxaan u malaynayaa wuxuu qof walba u dareemayo sidan sababtoo ah fayruuska iyo xeerarka cusub way nagu wada cusub yihiin qof garanaya wax la sameeyo ma jiro taasi waa fikrad wanaagsan xirsi haa laakiin uma dhaqantid sidii inaad sidaas dareemaysid waa run xirsi caadi ayaad u dhaqmaysay hooyo maadan ahayn sida aniyo hido taasi wax keenaya sababtoo ah waxaan ahay geesi weyn geesiyiintu way yaqaanaan siday wax ula macaamili lahaayeen ani xitaa geesi weyn ayaanahay laakiin waan la'ay wax qalab ah aan ku hagaajiyo marxaladayda sababtu waxay tahay horay baad u haysataa qalabka kuu habboon kanoo kale ma gacantaada hooyo haa waxaan xisaabiyaa ilaa 8 hore iyo gadaalba
ma fahmin. waxaan ku leeyahay mid kale meeshay taas ka timaaday. haa gartay, faraha labadaada gamco ayaad u xisaabinaysaa hore iyo gadaalba. miskax. Carruurey inima fahmin. hooyo way fududahay markii aan dareemo murug mise xanaaq mise wax aan la fajaco waan ka hakadaa. waxaan isku dejiyaa neef qabasho, farahaygana waan xisaabiyaa hore iyo gadaalba. 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1. haddana waan ku soo ceshaa. markaan ka hakado neefsado xisaabiyana waxaan dareemaa in aan qaboobay, waana awood weyn. ani waxaan xisaabin karaa ilaa 100. Hido hooyo, taasi waa cajiib. Markaan gabar yar ahaa, markaan cabsi dareemo oo calooshuunay xanuunto, waxaan jeclaan jiray inaan ka fikiro xasuuso i farxad geliya. Xasuustaan ugu jeclaa waxay tahay markaan ciidda baaldegayne markaan 10 jir ahaa. hooyaday iyo habaryarahay waxay dubi jireen doorshe. waxaan cabbi jirnay cabitaamo macmacaan. wuxuu ahaa waqti aad ii farxad geliya. mar kasta oo aan waqtigaas ka fakaro waxay igu caawin jirtay inaanan cabsan markaan idinka idinla ekaa. ilaa haddana sidaas waan sameeyaa markaan cabsi dareemo. adi xitaa awoodda sare miyaad leedahay? sidaas bay ila tahay. ma marka qaarkooda waxaa i gasha cabsi weyn oo ah inuu fayruuska korona igu dhici karo. inkastoo aan layga dareemin, marmarka qaarkood ani xitaa waan ka cabsi qabaa inuu COVID-19 igu dhaco. laakiin markaasna waxaan soo xasuustaa ciiddaas. sug cabsibaa? ma waxaad ka waddaa labadiinaba waad cabsataan? maaha inaan cabsi qabtaan. qoyskeennu waa nabad qabaa. ka hortagana waan ku dhaqmaynaa. annagoo dhan waxaan samaynaynaa shaqo wanaagsan in aan qoyskeenna iyo annaguba is-ilaalinno. xasuusnowna dadka inta badan way ka boodaan hadday helaan fayruuska korona. waxa kalood i dejiye ma garanaysaa? waa maxay? in aan socod u raaco hooyadayda iyo walaashayda. ma samayn karnaa? carruur wanaagsan ayaa tihiin. dabcan soo baxa. labadeena keebaad sii jeceshahay? labadiinaba isku si ayaan idin jecelahay. bal ii sheeg. haa inaan ogaanaan rabnaa. labadiinaba waan ku baryayaa inoo sheeg. waad og tihiin inaan midkiin dooran karin. dhib ma lahan, maanan kala jeclin. haye indhihiina daboola. midkaan jeclahay madaxaan ka taabanaya. haa waan ogaa. waxaan rabnaa inuu qof walba ammaan qabo. waxaan nahay mataanaha beedhowr. sidaas bayna geesiyaasheenna u badbaadiyeen qof walba. waxaan u baahannahay mid kastoo inaga mid ah, mid weyn iyo mid yar, mid da'yar iyo mid waayeel aba, in aannu wada hubsanno oo aan ilaalinno qoysaskeenna iyo qoysaska kale. taasi waxay ka matalaysaa gacmahaaga in aad ku dhaqdo saabuun iyo biyo mar kasto, afkaagana dabool markaad qufacayso iyo markaad hindhisaysana. maaskara xidho markaad bannaanka joogtid. iska ilaali in aad wejigaaga taabato iyo kala fogaada
dhakhtarna la xiriir haddii aad qandho ama qufac aad dareento adna ma noqon kartaa ammaan suge waxaan rabnaa inuu qof walba ammaan qabo waxaan nahay mataanaha beedhowr